Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta waxaan barnaamijkeena taxanaha ee sirdoonka kusoo qaadan doona Shulamit Kishi Cohen oo ahayd basaasad yuhuudiyad ah isla markaana dadka yuhuudda ka soo qaadi jirtay dalalka carabta si tahriibana ku geyn jirtay dhulka Falastiin ee Israa'iiliyiintu haystaan. Shulamit Kishi Cohen waxay ku soo caanbaxday howlgalka ay ka sameyn jirtay Lubnaan iyo shaqada adag ee ay u qabatay wakaaladda Mossad oo ah hay'adda sirdoonka ee Yuhuudda. Waxay ku dhalatay Argentine sanadkii 1917 wuxuuna reerkoodu u soo haajiray dhulka Falastiin iyada oo caruur ah, waxayna ku soo barbaartay agagaarka magaalada barakeysan ee Qudus. 16 jirkeedii waxay guursatay ganacsade Yuhuudi Lubnaan deganeyd kamida. Guurkoodii kadibna waxay u guureen Beirut. Lamaanahani waxay muddo ku noolaayeen xaafadda ay Yuhuuddu ka degi jirtay magaalada Beirut. Waxay dhashay 7 caruur, waxaana kamid ahaa wiilkeedii Itzhak Levanon oo ahaa diblomaasi Yuhuudi ah. Labadaas qodob ayaa ka saaciday inay Yuhuudda u tahriibiso dhulka Falastiin. Bilowgii dagaalkii xoreynta ee ugu horeeyay ee Carabtu Yuhuudda ku qaaday, waxay Yuhuudda u gudbisay xogo muhiim ah oo ku saabsan dhaqdhaqaaqyada ciidamada Lubnaan. Shula waxay ku guuleysatay inay sii wado howlgalkeedan basaasnimo iyada oo aanay wax ogaal ah u hayn qoyskeedii. Waa sifo lagu yaqaan basaaska inaanu la wadaagin wax xog ah qoyskiisa. Markii ay muddo hawshan ku jirtay iyadoo ka cabsi qabta caruurteeda inay dhibaato soo gaadho, ayaa labadii caruurteeda ugu waaweynaa ay u dirtay Israa'iil. Shulana waxa ay sii waday howlgalkeedii dahsoona kaliya maaha Lubnaan ee xitaa Suuriya ayay xogo ka keeni jirtay. Sanadkii 1947 ilaa iyo 1961 ayaa ay Mossad ka caawisay soo daabulidda Yuhuudi Lubnaan iyo dalalka Carbeed deganeyd. Qaar waxa ay sheegayaan kastaba ha noqotee Shula waxay sumcad ku dhex yeelatay bulshada Beirut, waxayna lahayd goobo ay ku madadaalin jirtay siyaasiyiinta, ganacsatada saameynta leh iyo madax ciidanba. Waxay u isticmaali jirtay goobahaas baarar ay lahayd iyo dukaankii ninkeeda ee Beirut inay kula xiriidho cid walba oo ka saacidaysay siinta xogo muhiim ah oo ay u gudbin karto Israa'iil iyo dhisidda shabakad basaasnimo oo qarsoon. Shula waxay u aasaastay shabakadan kaliya maaha inay xog soo ururiso, laakiin sidoo kale inay Yuhuudda u tahriibiso koonfurta. Shula waxay qayb ka ahayd howlgalkii weynaa ee lagu magacaabi jiray Aliya Beit oo ahaa howlgal loogu soo daabulayay dhulka Falastiin Yuhuudi dhulalka Carbeed joogtay iyadoo la soo marinayo Lubnaan. Carabtu waxa ay diidanayeen deegaameynta Yuhuudda ee dhulka Falastiin wixii ka horeeyay sanadkii 1948. Sidaas daraadeed tahriibintuna waxay ahayd mid aad sir u ah. Yuhuudda ku soo qulqulaysa dhulka Falastiin waxay noqotay mid iska caadi ah. micnaha Carabtu aanay si aad ah uga dhiidhiin wixii ka dambeeyay sanadkii 1948. Tahriibinta Yuhuudduna waxa ay sii socotay sanado badan. Guusha ugu weynina maaha warbixinada ay keentay ee waa joogitaankeeda Beirut. Shula howlgalkeedu wuxuu ahaa mid howlyari ugu socda ka hor inta uuna soo yeedhin war lama filaan ah, kaas oo ah in gurigeeda dhexdiisa ay ka dhacaan ganacsiyo dhanka jinsiga ah. Waxaana wakaaladda sirdoonka ee Lubnaan ay bilowday u kuurgelidda wax dhabta ah ee lagu dhex sameeyo goobahaas. Waxay nagu noqotay caqabad inaanu daaha ka qaadno waxa ay gabadhani qarinayso, waxa ay shaqadeedu tahay iyo cidda ay u shaqayso, ayuu yidhi Generaal Sami Al-Katib. Isaga oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu yidhi, waxaanu kiraysanay mid ka sarreeya aqalkii ay Shula deganeyd. Waxaanu sidoo kale kiraysanay guriga ka hooseeya aqalka ay deganeyd. Waxaanu bilownay inaanu basaasno waxa guriga dhexdiisa lagu sameynayay. Qalabka wax lagu dhageysto ayaanu ku dhajinay sagxadda guriga iyo gidaarada. Waxay ku xidhnaayeen satellite. Waxaanu codka u diraynay goobta laga kantaroolayay
labada qolna waxa ay shaqaynayeen 24 saacadoodba. 2 bilood oo dabagal lagu hayay Shuula, wakaalada sirdoonka ee Lubnaan waxa ay heshay dhammaan xogihii looga baahnaa Shuula, waxayna qorsheeyeen in 9 Agost 1961 ay si kadisa guriga ugu galaan. helitaankii Shuula Cohen ee Beirut waxa uu argagax ku keenay dowladda Lubnaan oo dareentay in lagu dhex jiray. maxkamadayntii Shuula waxa ay bilaabantay 27 Oktoobar 1961 waxayna soo jiidatay indhaha saxaafadda caalamka. nasiib darrase wax xukun ahi kamuu soo bixin. 27 July 1962 Shuula waxaa lagu xukumay dil toogasho ah, laakiin cadaadis caalami ah oo ay Yuhuuddu dabada ka waday waxaa xukunkeedii dib loogu dhigay 20 sano. Shuula waxa ay xabsigeedii Beirut ku qaadatay 6 sano oo kaliya. Israa'iil waxa ay qabatay tiro badan oo Carab ah intii uu socday dagaalkii Israa'iil iyo Carabta ee sanadkii 1967. Shuula Cohen iyo Yuhuud kale waxa lagu sii daayay maxaabiis isdhaafsi dhex maray Carabta iyo Israa'iil sanadkii 1967. Shuula waxa ay ku baqtiday magaalada barakaysan ee Qudus 22 May sanadkii 2017. qaybtanina maanta intaas ayaa inoogu dhan tahay. si aad ula socotid qaybaha dambe ee barnaamijkan, fadlan hubi inaad channelkan subscribe tiraahday.